wararkan ka helayno xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegaya in caawa xilligan aan idin la hadlayno uu shir degdeg ah ay u fadhiyaan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. Kulankani golaha wasiirada ayaa wararku waxay sheegayaan in lagu magacaabayo ra'iisul wasaare ku-xigeen labaad oo dalka uu yeelanayo, kaasi oo la sheegay in horey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga ballan qaaday xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed. Taa beddelkeedana iyaguna ay u ansixiyaan dastuurka dalka. Xogahan helnay ayaa sheegaya in Saalim Caliyow Ibrow loo magacaabayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka, balse warar kale oo haatan inaga soo gaaraya xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ama halka ay ku shirayaan golaha wasiirada oo la doonayo in lagu magacaabo ra'iisul wasaare ku-xigeenkan labaad ay soo galeen xildhibaano gaarayo ilaa 40 kuwaasi oo ka soo jeeda beelaha direed oo iyagu qoonda ahaan u haysta ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya. Waxaana la sheegay in xildhibaanadani ay weheliyaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Abshirow. Xildhibaanadani ayaa la sheegay in haatan iyaguna ay ku sugan yihiin isla hoolka isla markaana ay ka biyadiidsan yihiin magacaabista ra'iisul wasaare ku-xigeenkan labaad, ayagoona ku andacoonaya inay hoos u dhacayso awoodda ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka. Wixii warar ay ka soo kordha kala soco Kalson TV hadduu Allah awoodda sare la ogolaado. Maxamed Macalin Mustafa, Kalson TV, Muqdisho.